arrinta ugu horeyso aan ka bilownay waxay ahayd dadka xaasaska ka maqan yihiin waxay qaadan jirtay 3 sano 5 sano iyo ka badan waxaan ballan qaaday inaan arrintaas wax ka bedelo waxaan ka dhignay 12 bilood iyo wixii ka yar ballankaasna waa fuliyay laakiin qoysas waxaa jira isu keenteen ilmihiina ka maqan yihiin marka arrintaas see la isugu qaban karaa case qaas ah oo shaki ka jiro cunuga inuu qofkii dhalay ama whatever waa dhici kartaa laakiin generally markii loo hadlaayo markaan ku leeyahay 12 bilooda dadka loo keenaa xaasaskooda applicationka waxaa ka mid ah carruurta xaasaska keliya ma aha marka hal case oo always fiiri waxaan waa wax oo macnaha oo general ah laakiin cases always waxaa jiro oo ka baxsan sharcigaas waxaana keenayo shakiya waxaa ka jiro for example guurka ama ilmaha inuu qofkii dhalay ama waxaa dhici karto qofkii immigration ahaan in loo dhammaystiro laakiin security ahaan in farihiisa la waayo kale waa gartay Canada waa gartay immigrationka xaasaska iyo qoysaska la isku keenayo aad loo fududeeyay qof walbana waa weydiin kartaa taas waa gartay Canada waxay sheegtay inay soo qaadayso dadka leh aqoonta kaliya oo dadkii qaxootiga ahaa ama xeerkii sharciga adduunka u yaalay xaguu ka maraya dadkii aqoonta lahaa kaliya hadii la soo qaado dadkii dagaaladu dhibaateeyeen arrintaas wax ka jiraan ma jiraan Canada waxay 3 group bay albaabada u furtay groupka koowaad waa qaxootiga groupka labaad waa qoysaska la isku keenayo groupka saddexaadna waxa la economic immigration waa dadka maskaxdooda iyo khibradooda loo keenayo waddanka saddexdaba waa u furan tahay Canada wali qaxootiga albaabada Canada ma laga xirin waxa u maleynayaa inay ugu qaldamaysid Mareykan iyo wadamo kale Canada inta aniga mas'uul ka ah iyo mas'uuliyadda dawladdeena uu ra'iisul wasaaraha Trudeau madax ka yahay iska dhaaf inaan albaabada xirnay waa badinay qaxootiga aan Canada keenno waa kordhinay